lantu waxaan daawadayaal ku soo dhawaada oo barnaamijkeena toddobaadkiiba hal maalin ka daawataan channel Siqaawi hadda waxaan ku suganahay hotelka Telesom agteeda waxaan weydiin doonaa dadka ay ku dhaqanayeen caasimad magaalada Hargeysa riigooda ay ka qabaan madaxweynaha Soomaaliland socdaalku ku tagay Jumhuriyadda Djibouti ay ku kulmayeen madaxweynaha Soomaaliya ayaan weydiin doonaa dadweynaha ku dhaqan هاي كسروا برنامج كذا مقعد كبلابايا مقعد هو محمد يوسف شيل الحاشي محمد وصلوا أركتها كلن كي مدحونها الصومالية مدحونها الصومالية كل من جيبوتي والله وحنورك كلن كاسين وعدوا فينا صومالينا نقول بوعة أساسا نقول فكرة دحيتها واحد لا واحد كسب مقتل كاي نقول بسوماليا نقصوا يتم يلا ذي قول يهدي لا صوماليا نقصوا يتي يوم ما تعرف عن بس صوماليا نقصوا يتي أساسا لا aad mahadsantahay kaas waxa mid kamid ah daawadayn kaas waxa mid kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa wala barnaamijka ku soo dhawaado magaca ku bilaabaya aad baad mahadsantahay magacaygu waa Maxamed Saciid Absiye Maxamed soo aragta safarka madaxweynuhu ku tagay magaalada Jumhuriyadda Djibouti ay ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya waxba wala laga faa'iidi maayo ما حتى وحبة لقى فائدة ما تري واي ددوينه وحقبة إنه يقولوا إنه قصوا هيتي سومالي لا وحبة يقولوا كم يسوون حكم ما دحتران دي واي سومالي وحير هذين أساسا ما هاين أقص كذي إنه هشة وحلا كل ما بيلها أي ده دنتك إنه كلا الله يعني أقص كذي سومالي لان ما تسلهن تنتها وكذا هذا نقول أيه قصوا هيتي سومالي ما أقص كسومالي يبقوا هيسوا دمشق يكون هاي أقص وأنا دمشق يكون هاي لكن سومالي كويسة لكن مدحونها الصومالي وكل من جيبوتي مدحونها سومالي أيوان كوكسون هاي صومالي عيار كوكسين ما يساق قنصقة واي محاس لا وكل حدا ساعدك كل تاي صوماليا عندي هي وحكوار كيلاد وادق مركز ده قنص قوسي سميوه عندي marka Soomaaliland waxa la Soomaaliya aqoonsiin mayso marka hadam xikii wada hadlay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland kaasna waxa mid kamid ah dadweynaha ku dhaqan caasimada magaalada Hargeysa waxaan weydiinayaa su'aasha wala ku soo dhaw magacaaga ku bilaabaya walaal magacaygu waa Asdaar Cabdille ayaan ku dhawahay أسدو صادو أركتا كلن كي مدحونها Soomaaliland وكل من مدحونها Soomaaliya Djibouti horta kulankaas wallahi saan u deefilay wax isla wax fiican ba ka soo bixi laakiin horta wallahi in kastoon dhageystay wax ka soo baxay laakiin maanta madaxweynaha si fiican baa loo soo dhaweynayay ku faraxsaneen waan si fiican loo soo dhaweynayay laakiin jawaabtay wixii ka soo baxay horta wallahi ma daawan laakiin insha Allah inaan daawada la yaabo maslada shacabka Soomaaliland waxay ku farxaan baa ka soo baxay horta kulli waxa la toor wallahi farxad fiican baa muuqatay marka laga yaabaa in wax fiican uu ka soo baxay aad mahadsantahay kaasna wuxuu ahaa mid kamid ah dadweynaha ku dhaqan caasimada magaalada Hargeysa aan weydiinay madaxweynaha Soomaaliland safarka uu ku tagay magaalada Djibouti kusoo dhawla magacaaga ku bilaabaya magacaygu Haruun Cabdi Saad Qaadir ku dhawahay Haruun saad aragtaa kulankii madaxweynaha Soomaaliland uu kula yeeshay Djibouti madaxweynaha Soomaaliya والله تاريخ واحد أركاري ونكسر إن كستاني قلوده كونفرت كسجدة بشرح قال لويا وأنا كفر عشان هاي كله كان لو ثمن مثل هذا واحد كسب بحي سؤاله يكون قنع دونان يعني شعب كارليس مالنا عم بيكون فرحان عادي وهاي هدامر ولا هذا ما عرفت واحد بيها جا وهذا الله أنت درون لكن رجوا في عنا كريتين مدعينك سومالي الصومالي أدوي لك اليوم هذا mahadsantahay kaasna wuxuu ahaa mid kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa daawadayaal sidoo ogtiin wali bartanka waxaan kaga jirnaa channel wali bartanka waxaan kaga jirnaa barnaamijkeena aan ku weydiinay dadweynaha madaxweynaha Jumhuriyadda Soomaaliland safarka uu ku tagay Djibouti ay ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Hargeysa ku soo dhaw magacaaga ku bilaabaya Axmed Cabdilaahi baa walaal aniga أحمد صدق أركت سفرك مدحونها جمهورية Soomaaliland وكنت جي جيبوتي سفرك waxaan arkaa walaal safar taariikhi ah oo guul laga soo gaaray baan arkaa walaal مثلها سفرك waxay ka sugayeen shacabka Soomaaliland su'aalaha ay ka sugayeen ee farxad lahayd ay u sidaan madaxweynaha aad u sidaa waan soo sleey wuxuu sidaa guul buu sidaa iyo su'aalo muhiim ah oo loo baahnaa ولا سعودها ملانا شركة أنتو جيبوتي كسعودية مدحونها Soomaaliland أي كل ما مدحونها Soomaaliya يرسل وزارها إثيوبيا أي مدحونها جيبوتي أي كودا هلاين مثل هذا هاي تاريخه وكشكي ددان أوجين أي هذا أوجادي هايو أدب وإسلايو Soomaaliya أوجين حتى Soomaaliya ما أوجين
taariikhdu ka sheekeeyay Soomaaliya xitaa ma ogeyn laakiin marka waxaan filayaa in la wada garowsaday caalamka in la garowsaday oo Soomaaliland waxay dee ku doodasay inay wax gar ahayd oo la garowsaday baan yaa la ogaaday aad u mahadsantahay kaasna wuxuu ahaa mid ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa aan weydiinayna su'aalaha ay safarka madaxweynuhu ku tagay Djibouti aad u mahadsantahay ragga dadweynaha ku weydiinayna su'aalaha walaa ku soo dhaw barnaamijkaada magacaaga ku bilaabaya aad iyo aad baan ugu soo dhawaa magacayga xasan cabdi baleera xasan soo aragtaa safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay Djibouti oo kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya والله si fiican baan u arkaa qadiyada Soomaaliland waxay nahay marka horeba laba dal oo kala go'ay baan ahay Soomaaliland iyo Soomaaliland marka horeba marka in anagu Soomaaliland itraafkeeda aad baan u soo dhaweynaa taana waxaan ka rajaynaa inuu guul ka soo bixi doonaan masladahay madaxweynuhu shacabku way u dhigtaagayeen waxay sugayeen madaxweynuhu inuu keenayo inuu sida war farxad leh masladahay aqoonsiga Soomaaliland ayaa soo dhawaaday imikadan lafteeda warkii farxad leh la sugayay waa u yimid mar hadii sidii marka hore shanqar badan baa jirtay haday noqoto dhan walba oo magaalada ku wixeeda si walba shanqar badan baa jirtay laakiin hadda waa farxadii baa la sugayay baa madaxweynuhu keenay madaxweynuhu baa la sugayay Soomaha ay su'aaliye shirku wixii ka soo baxay inuu maxaday ka sheekeeyo shirka mustaqbalka hadii la yiraahdo waynu suganaa wixii ka soo bixi doona insha Allah khayr loo ma ka rajaynaa hadii la yiraahdo oo inaga wada farxiyo dhamaantii aad u mahadsantahay kaasina waxa mid kamid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda magaalada mid kamid ah kaasina waxa mid kamid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda magaalada Hargeysa aan weydiinay reegooda madaxweynaha Soomaaliland safarka uu ku tagay magaalada Djibouti bilaabaya Abdulla Abdi Saamo leeyahay Abdulla soo aragtaa safarka madaxweynaha Soomaaliland uu Djibouti ku tagay bismillaah rahmaan waxaan u arkaa kullu shirarkii hore waxaan kaga yar doonaa wadamada jaarka la ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ay koonfurti tahay Itoobiya Djibouti ayaa meesha joogay goobjoog ahaa midowga Afrikana uu joogay shirka goobtana wuxuu ka dhacay geeska Afrika ka dhacay halkii hore ka dhici jiray Yurub iyo Imaaraadka iyo Greece iyo meelaha uu ka dhici jiray marka kulli khudbada garnaqsiga madaxweynuhu meesha ka akhristay ma oran kara macnaheedu sameynaysaa waayo deen lagu maqlaa mar hadda dadka dood isku haysteen in lagu maqlaa waa muhiim marka madaxweynuhu deen ma oran karo aqoonsigu sidana ma oran karo communique la soo saarana wax tusoo taabsiyo maanta in oran karo qaranka guul baynu ku sheegan karnaa ma jiro hal qodob un baa faa'iido lahayd oo in dooda Soomaaliland laga caalamka maqlaan intaas ma walaal kala yimid hadday taas macna leedahay intaas macna warka laakiin waxaan maanta u dabaal degno oo ay meesha kala mid walaal ma jiro ana mahadsantiin aad u mahadsantahay kaasna wuxuu ahaa mid kamid ah shacabka ku dhaqan caasimadda magaalada Hargeysa aan weydiinay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu Djibouti kaga yimi kusoo dhaw channelka Sakhaawdiin haddaad ku cusub tahay kusoo dhaw aan ku leenahay haddaad hore u noola joogtina waxaan ku leenahay aad u mahadsantahay halka cas cadaan u bedel shir committee iyo sabir garab intaba isku raacay daawadayaal waxaan ku suganahay bartamaha caasimadda magaalada Hargeysa halkan aad wada arkaysaan waa khayriyada agteeda ayaan joognaa waxaan ku codsanayaa wiilka inuu inagu qabto magaalada jooga degan daawadayaal wali bartanka waxaan kaga jirnaa barnaamijkeena reega dadweynaha walaan ku soo dhaw barnaamijkaada magacaaga ku bilaabaya ayuu ku dhaw walaale magacaygu waa على أساس waxaan ku weydiinayaa soo aragtay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo Djibouti ku tagu dhigiisa Soomaaliya kula kulmay wallahi waa intee horta marka hore waa bashbashe barwaaqo horta yaa dalkana waa dalkan walaalkeen oo kale ma garanaysaa muusanada wallahi wuxuu qabtay waa wax aad u weyn oo wadanka laga doonayno qabto yaa saasan walaalkiisa aad u mahadsantahay kaasna waxa mid kamid ah shacabka ku dhaqan caasimadda magaalada Hargeysa aan weydiinay safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo Djibouti ku tagay dadweynaha weydiinay safarka madaxweynuhu kaga yimi caasimadda Djibouti walaa ku soo dhaw barnaamijkaada magacaaga ku bilaabaya abshir soo aragtay safarka madaxweynaha Soomaaliland oo Djibouti ku tagu dhigiisa Soomaaliya kula kulmay waxaan u arkaa guul aad iyo aad weyn u arkaa halka oo ku guuleysanay waayo sababtoo ah Soomaaliya farmaajo iyo khayr toona deema goobjoog ma wixii halka ka dhacay wax rag goobjoog waa ay halkeen ka tagay sababtoo ah tarkii goobjoogayaasha ahaa marka halkan joogay tagay halkeena ka tagay halkeena
ayaa markaa waxaan ku yiri si fiican u hadlay waxyaalaha ka dhacay goobjoog ma ahayn nabad baan doonaa maxay waxayna inagula meeraysanaga wixii waa cadaan aad iyo aad balka madaxweynuhu guulaysto waxaan leeyahay hambalyo halka uga dirayaa madaxweynaha markaa insha Allah waynu guulaysanaa masladahay madaxweynuhu su'aaluhu halka barnaamijku la tagay way wala qaateen dhigiisa madaxweynaha Soomaaliya ما سؤالي هالكا ولا تري هاي علشان وكشيكين هاي مدحونها سومالان وحي سومري وهالكا كشيكين تاريخي هره تاريخ ده وحبا كما اوغينتي لما قادن وحبا kala ma qaadano wiskiga tagay markii la yiri arrinkaas ka taagnaa meesha ka dhacay maxaad u aragtaa markii la yiri uu ka aamusay waxyaabo badan oo waxaan doonay dad walaaltinimo ah waxaas mooyaane laakiin cadaan isku taagin wixii looga baahnaa isaga masladahay madaxweynuhu shacabka Soomaaliland waxay u dhigtaagayeen war farxad la inuu madaxweynuhu keenay waayo inta shirka madaxweynuhu ku guda jiray shacabku waxay lahaayeen guulo badan ayaa in ka soo hoytay Soomaaliland madaxweynuhu shirka markuu ka qayb galay oo ka sheekeynayay Soomaaliland taariikhadeedii midlada markaa madaxweynuhu qudbadiisa markuu u ramo shacabku waxyaabaha ay ka sugayeen inuu sheegi doono shacabku waxyaabaha ay ka sugayeen in markuu halka yimid sheegay maanta horta qudbadiisa waan dhageysanayo si fiican buu hadda markuu halka yimid aad iyo aad marka aanu xitaa markuu halka qudbadiisa uu kaga hadlayna waan dhageysanayay tii af Soomaaliga English ma fahmay laakiin labadii jeer baa af Soomaaligiisi aad si fiican buu waan dhageysanayo uu hadlay marka waxaan dhageysantii farmaajo marka farmaajo wax alla wax ka soo qaado oo isleeyahay waxa lagu garaabay uu kaga hadlay meesha xitaa beesha caalamku markii meesha la isugu yimiday wax alla waxay ka soo qaado way garan weeyda arrinka dadkii goobjoogayaasha in ka tagay wixii ka dhacay goobjooga u ahaana wixii ay arrinkii Soomaaliya inay Soomaaliland ay u waageen say karta wax aad u mahadsantahay kaasna waxa mid kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa daawadayaal waxaan ku suganahay bartamaha caasimadda magaalada Hargeysa halkan aad wada arkaysaan waa khayriyada agteeda ayaan joognaa waxaan ku codsanayaa wiilka inuu inoogu qabto magaalada jooga degan بدانسية الجعلكاي حرمكي بربركاي daawadayaal intaas waxaan ku soo gudbinaa barnaamijkeena toddobaadkii hal maalin aad ka daawataan channelka Seekhawi hadad fadlan channelka ku cusub tahay subscribe iyo share iyo comment hadad hore noola joogtina aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijka xigeentan ku kulmayna sidaas iyo nabadgelyo بدانسية الجعلكاي حرمكي بربركاي